ستي نور محمد ستي منوقته أنا أهاي دولة مركز جرتي بنك وافينا هاي حتى لكن أرجع أنا بمقدس نقدي دقدي أنت يكون ناشئ حتى مليسو ده هو من أها فينا أساس إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته فنندي هراء الصوماليات ولقوا مجاعب جري ستي نور محمد ستي منوقته أو كوجريوتي مجال المقدشو هذا بس الصوماليدو ما قرب استاجته هالدور كيدو مركو وباهي هاي وما قرب وجباهي هاي بل سوى حي بونبونيسا مركو وجريودو أو دينتو أي بونبونيسا وسان وحبا وجباهنين وكل يوم باهي هاي نهارستي أي بي maxaan saa u leeyahay Sitay Manoogto waxay kamid ahayd fanaaniintii Soomaaliyeed oo waliba xawaaladii waabiri waxay dalkan u soo qaaday heeso badan oo nooc walba isugu jira haday noqoto jacayl haday noqoto gubaabo haday noqoto wax sheeg intuba way soo qaaday balse waxa arinta la yaabka ah leh oo aan rabay inaan sheekadana kala soo dhaxbaxo waxay tahay waxay gaajo ugu dhimatay kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho taasana ku cadeynaysa Soomaalidu inaynan isgarab istaagin ama inaynan garab siinin hal doorkeeda markuu garabka uga baahan yahay kaliya markuu uu dhinto ay jeceshahay inay tiraahdo Allah u naxariisto ama ay ku kala horeeyaan Facebook-yada in qofka tacsiye loo diro hadda ka hor fanaankii hore Allah u naxariistay Cabdi Taaliil Warsame sidoo kale muddo dhowr ilaa 20 sano ayuu magaalada Muqdisho ku xanuunsanayay oo ana cidna u tagin ana cidna waxba ku darsan kaliya la tacaalisay gabar u dhalay fanaanka Soomaaliyeed wuxuu ahaa fanaan Soomaaliyeed heesa badan qaaday wax dhan walba iskugu jira buu qaaday Soomaaliya markuu ay dani meel dhigtay ama xanuun u meel dhigay la rabay in bulshada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inay garab qabato abaalkiisu waxay ka dhigeen in hayta aanan booqan in hayta aanan lisweydiin in hayta aanu salaam alaykum la oran sidaasuna daryeel xumo u dhintay magaalada Muqdisho fanaanadana tii Cabdi Taaliil waxba kama duwana waxaan isla eegi doonaa muuqaalo iyadoo nool laga duubay oo waliba ku nool kaam kamida kaamamka magaalada Muqdisho dabcan dad badan baa daawaday muuqaaladaasi wala awoodi kareeyay maamadan intay nooleed oo daryeelka u baahnayd garab istaaga oo u baahnayd dawladeeda cid walba u baahnayd in wax la taro wala awooday laakiin maanta cid ay u baahan tahay Ilaahay ma jirto iday u baahan tahay aanu eebihi abuurtay ahayn ma jirto waxa macnaana u soo kordhin mayso in maanta Facebook-ga Ilaahay u naxariisto lagu soo qoro way fiican tahay qofka horta in Ilaahay u naxariisto la dhaho balse qof walba wuxuu shaqaystay ayuu aakhire la tagaa waxa la shaqaysana adduunkan qof kaaga soo dirayna ma helaysid balse waxa fiican qofka intuu nool yahay in la garab istaago intuu nool yahay in wax la siiyo aan isla daawan horta muuqaalkeeda inteenan dhiman ka hor تيدان كوغالي خفتان كلا قيد لما قليت ما بقى ما يتكلم كلا قليت أنا كلي أعلن كسوق هذه ما أنتوا ود جميل وحقيقي جيش رادي مقدسو ما حقك أنت دخلان أنت ليه ما حقك أنت دخلان وحيل فيها كرة فدي قدلوا فيها أنت ما حقك أنت ساعات مركي له هو يبقى المدح خلدا إيجا هايسين hooyadii qof maanta xanuunsan waay dabcan heesta iyo muuqaalka duruufta iyo daryeel xumada iyo diifta ka muuqata waa maamada Sitay Manoogto oo ku nool kaam kamid ah kaamamka magaalada Muqdisho maamadan hadaba ma la oran kara daryeel xumo ayay ugu geeriyootay magaalada Muqdisho marka laga yimaado waqtigeeda iyo arsaaqadeeda oo dhamaatay oo adduunka ka dhamaaday ana cidna joojin kareen balse intay noolayd muddo 20 sano ah ama dhowr iyo 20 sano 23 sano ah ba maamadan Muqdisho ku xanuunsanaysay xitaa inteenan xanuunsan ka hor iyadoo waayeela bay xaafadaha ka shaqaysan jirtay dharkay dhaqi jirtay guryaha masixi jirtay qof xoogsatay ahayd iyadoo fanaanad qaran ahayd iyadoo fanaanad Soomaaliyeed ahayd iyadoo meel oo maanta oo dad badan oo maanta isbaaray ah ay joogan meel ka fiican bay tagi kareysay hadii oo la eegayo dalkan dawladnimo iyo waxyaabo badan aan qabiil lagu qiimeynin meesha meel ka fiican bay maanta joogi lahayd balse wadankeeda oo sidan noqday oo burburkan ku dhacay ba dhibaatada u geystay dawladda Soomaaliyeed xil iska ma saarto dad iyagu noocana
sidoo kale bulshada Soomaaliyeed xil iska ma saaraan dadyooga noocana habeen walba waxaan $100,000 u dirnaa wiilal yar oo qabiilistiyaal ah oo reer caayaya oo reer isku caayaya bal loo dira waliba lacagta inta ugu badan hadii iyaga intifaacsan lahaayeen macna ahaan lahayd iyaga ma intifaacsadaan waxa intifaacsada ninka application-ka iskale ama dawladda application-ka iskale ee TikTok ba kala barobar qaadanaysa intii yara soo hadhayna wiilashaas qaadanaya ma wuxuu ma qofka bilaadanka in wax la taro haduu wax qabsanayo oo wax lagu taageero balse waxa ka mudan in qofka xanuunsan oo maanta waxaad siisid aakhira sadaqa ku ah sababtoo ah qofka walaalkaaga markaad wax siisid aad u niyootid inaad sadaqa bixisay ilaahay miisaanka aakhiro kuugu daraya laakiin adoo maanta taageersan wiilkan waa qabiilka yaga oo reer hebel yuusan geemka ka badin adoo wax u bixinaya hadaniga sheekhna ma ahiya laakiin ilama aha inay miisaanka aakhiro qofku wax u soo kordhinayso waxaan leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed fariin baalka ugu diraya hoobal iyo fan Soomaaliyeed hodan ma yeeshaan baleeri afka baan ka hadaaqnay waan hoos madownahay marka gabayga waa gabay dheer abwaan abshir bacalla hore u tiriyay balse waxa idin leeyahay warinta dhalinyarta tiina shaqaysta fanaaniinay inta dhalinyarta tiin xoogsada aakhirana waxa idin kaga ma horeeyaan inkastoo naxariista Ilaahay adduunka aakhiraba aanan dhamaan haddana qofka haduu dambi galo dambigiisa Ilaahay cidna ma dulmiye waxaad shaqaysatid buu kugu abaal marinaya waxaad meesha la tagtid baa maxaan ku raacdaa lagu xisaabtamaya balse waxa idin leeyahay warinta dhalinyarta tiin shaqaysta warinta dhalinyarta tiin xoogsada warinta dhalinyarta tiin isku tashada warinta dhalinyarta tiin ganacsada samaysta ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo wax idin qabanaysa dawlad Soomaaliyeed ee oranaysa ninkan fanaan buu ahaa kuwii idinka tayada wanaagsanaa idinka murtida fiicnaa idinka qatarsanaa idinka dal jeclaada maanta dibka loo geysanayo oo meelaha Muqdisho dhexdeed meel 10 kilomitir u jirta Muqdisho gaajo ugu dhimanayaan fanaaniintii hawladii waa bari qaar badan ay hadda ay maxaan ku raay ku silcayaan Muqdisho dhexdeed oo iyagana daryeel xumo ay amindhow ay u geeriyoon doonaan balse waxa idin leeyahay war shaqaysta oo Ilaahay ka cabsada adduunku waxa ugu daran qofka labada daarood ba khasaara qof tan aan waxba ku helin haduu tabar dhaco tii aakhirana aan waxba ku helin baa ugu daran war Ilaahayna isku dirinna dadkiina waxay dama qabanayaan mar walba ta dambaysa fiicane ta Ilaahay u shaqaysta oo fankani waxana dabada ku wadaan iska daaya oo xoogiina maasha inta dhalinyartiina wax qabsada oo shaqo fiican oo wax tar leh oo Ilaahayna idin barakeeya ku shaqaysta tusaalana idin noqoto maamadan iyo kuwa la midka ah oo hadda geeriyoon doona iyo kuwii hore u geeriyoodayba in fanaan Soomaaliyeed aan dalkan laga qiimeeyeen taas ay idin cadaato maamada Ilaahay u naxariisto iyadii intii fanaaniinta hore iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ummadda muslimka Ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo oo dambigooda dhaafo aad bay idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh